Rabadaan wanaagsan. Daawadayaal waxaa magaalooyinka waaweyn ee dalka Bakistaan gebi ahaantoodba ka bilaabmay mudaharaadadii la filayay inay ka dhacaan. Mudaharadadan ayaa waxaa lagaga soo horjeeday xilka qaadidii lagu sameeyey Ra'iisul Wasaare Imraan Khan, kaasoo ay baarlamaanku habeen hore xilka ka qaadeen kadib 13 saacadood oo golaha baarlamaanka shir uu ka socday. Dadka taageera Ra'iisul Wasaare Imraan Khan oo u badan dhalinyarada dalkaas oo ah kuwa ah laf-dhabarka dalka ayaa isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn si ay u muujiyaan xumaanta ay ka xun yihiin sida loola dhaqmay Ra'iisul Wasaaraha. Xalay waxay isugu soo baxeen magaalooyinka waaweyn sida Karachi iyo Islamabad iyagoo wata tooshash kuna dhawaaqaya ku celiya booskiisa Ra'iisul Wasaaraha. Maalinimada maanta Isniinta ayaa waxaa loo ballansan yahay in baarlamaanku ay magacaabaan Ra'iisul Wasaaraha qofkii ka noqon lahaa dalka Bakistaan tan iyo inta laga gaarayo 2023 xilligaas loo ballansan yahay doorasho guud inay ka dhacdo dalkaas. Ra'iisul Wasaare Imraan Khan ayaa weli waxa uu ku adkeysanayaa in inqilaab uu ka dhacay dalka kaasoo ay ka dambayso dowladda Mareykanku, maadaama uu dhaleeceeyay siyaasadda arrimaha dibadda dalka Mareykanka wixii ka dambeeyay 2001 markii la qarxiyay daaraha dhaadheer ee Mareykanka. Siyaasadaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayuu wuxuu ku tilmaamay Ra'iisul Wasaare Imraan Khan inay yihiin kuwo lagaga argoosanayo laguna dhibaateynayo dadka Islaamka ah, halkaasoo loo badinayo inay tahay meesha laga raacay. Habeen hore ayuu Ra'iisul Wasaaruhu waxa uu ku waayay xilkiisa 3 xubnood oo keliya, kalfadhigaasoo qaatay muddo ka badan 13 saacadood kadib markii ay hareeyeen isqabqabsi xildhibaanada u dhexeeya. Hadalla dhaadheer oo ay soo jeedinayeen madaxda xisbiyada iyo xildhibaanadu ayay ugu dambeyn waxay ku guuleysteen 174 ka mid ah 342 baarlamaanka ahi inay ka qaadaan xilka Ra'iisul Wasaaraha. Khiyaanada ugu weynna waxaa ku sameeyay Ra'iisul Wasaaraha rag ka tirsanaa xisbigiisa u diga rogtay dhanka mucaaradka. Habeennimadii xalay Ra'iisul Wasaaruhu isagoo la hadlaya taageerayaashiisa dibadbaxa sameynaya waxa uu sheegay in xoreyntii dalkooda ay dhabta ahayd ay maanta bilaabatay. Hore ayuu uga codsaday dadka reer Bakistaan inay dibadda u soo baxaan cabiraana aragtidooda iyo waxa dalka ka dhacay, taasoo ay ka jawaabeen. Dadka dhalinyarada ee ku dhaqan magaalooyinka waaweyn dalka Bakistaan sida magaalada ugu weyn dalkaasi Karachi ayaa waxay yihiin dhalinyaro u badan shaqo la'aan, kuwaasoo ka daalay labada xisbi oo kale oo la tartamaya ahna kuwa xilka isaga ka qaaday Pakistani Muslim League Nawaz iyo Pakistani People's Party, kuwaasoo muddo 30 sano ka badan soo xukumayay dalka haddaanay ahayn tan iyo markii xorriyadda dalkaas uu qaatay. Dhalinyaradaasuna waxay dareemeen isbeddel markii uu Ra'iisul Wasaare Khan xilka yimid, waxayna aad uga xumaadeen isagoo wada howlgalkii uu dhalinyarada ku shaqageyn lahaa in laga khashkhashay iyadoo aan weliba codka lagaga qaadin doorasho dadweyne balse xildhibaano isaga khiyaamay ay la safteen dhinacyada kale kana qaadeen xilka, taasoo ay sheegeen inay ka dambeeyaan awoodo shisheeye ayna u baahan yihiin oo keliya Ra'iisul Wasaarahoodii inuu xilka kusoo noqdo shaqadiisana sii wato. Dhanka kale daawada dalka Bakistaan ayaa waxa uu yahay dal wejiye badan. Waxaa si rasmi ah dalkaas dib uga maamula ciidamada Bakistaan, kuwaasoo ah kuwa keliya dadka reer Bakistaan isku halayaan maadaama ay soo duman la wadaagaan labada dal oo adduunka ugu dadka badan. Xurguf weyn kala dhaxayso mid ka mid ah oo India. Xurguftaasoo soo jirtay tan iyo labadaas dal markii la kala qaybiyey sanadku markuu ahaa 1947. Bakistaan saddexda dal waa dalka ugu dadka yar waxaana ku nool 220 milyan oo keliya marka loo eego labada dal oo kale Hindiya iyo Shiina oo ay ku nool yihiin ku dhawaad haddii aanaba ka badnayn 1 bilyan iyo 400 milyan midkiiba. Waxayna isku halayaan waa ciidamadooda kuwaasoo ay si weyn u hubayaan kuna hubaysan hubka waxgumaada nukliyeerka, waxayna taa kala mid yihiin labada dal oo deriskooda ah. Dhanka kale Bakistaan waxay soodin la wadaagtaa dalka Afghanistan oo isagoo ahaa 40 sano u dambeysay dal qasan. Dagaalada Afghanistan oo markii hore ku bilaabmay midowga Sofiyeeti iyo muslimiinta oo doonayay dalkooda inay ka xoreeyaan, kadibna dagaalkii argagixisada uu ka bilaabmay halkaana uu ku dhuumaalaysanayay Osama bin Laden iyo ururkiisii Al-Qaacida. Wixii xilligaa ka dambeeyayna waxaa halka ka abuurmay Taliban oo iyadu sanadkan bilowgiisii laba wareegtay dalkaas. Dadka reer Bakistaan saddexda dhinacba waxaa kaga hareeraysan awoodaha aynu soo sheegnay, waxayna isku halayaan waa ciidamadooda oo heegan ugu jira sidii dalka u difaaci lahaayeen. Inkastoo aanay argagixisadu ka maqnayn gudaha Bakistaan oo gobolada xadka la leh dalka Afghanistan ay ka dhigtaan goobo ay ku dhuuntaan. Duruufahaas oo dhan darteed ayaa ciidamada militariga waxay yihiin kuwa iskala go'aanka ugu dambeeya, waxayna soo saaraan hadba Ra'iisul Wasaare iyaga ka amar qaata una hoggaansan, kaasoo markuu xilku yimaado u magacaabo kuraasta ay rabaan, siiyana dhaqaale aad u badan oo aan kula xisaabtamin, daryeel wanaagsanna ay ka helaan ciidamadu. Markaas ay isku hor yimaadaan ciidamada iyo Ra'iisul Wasaaruhu mar walba waxaa adkaada ciidamada,
haddii ay noqon lahayd inay afgembiyaan oo xilka ka tuuraan iyo inay si daaha dabadiisa ugu cagajuleeyaan kadibna uu iskago. Inkastoo taasu inta badan aanay dhicin, haddana militarigu waxay adeegsadaan xildhibaanada mucaaradka ah kuwaas ay ku dhiirigeliyaan inay ra-iisul wasaaraha dalka haya xilka ka qaadaan, iyagoo kusoo eedeynaya hadba wixii markaa ka socon karaya. Cimraan Khan halka laga raacayna waxay ahayd siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka uu dhaliilay, taasoo ciidamadu sheegeen in dalka Mareykanku uu yahay dalka ugu weyn oo Bakistaan dhanka ganacsiga ay la wadaagto, marnaba aan laga maarmi karin. Ra-iisul wasaaruhu waxa uu sameeyeyna ay tahay xadgudub uu dalkaas ku xadgudbay iyo saaxiibtinimadii Bakistaan iyo Mareykanka uu meel uga dhacay. Mar dambena waxay ku mashimeen ra-iisul wasaaraha inuu booqdo dalka Ruushka, taasoo ku beegneyd markii Ruushku weerarka ku qaadayay dalka Ukraine, halkaasoo ay ka bilaabatay carada dalka Mareykanka. Inkastoo marka si loo eego Cimraan Khan uu noqonayo geesi islaam ah, noqonayana hogaamiyaha labaad marka lagu daro madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan, kuwaasoo toos u dhaleecayay siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo ugaarsiga ay ku hayaan dadka islaamka ah, oo ay maalinba dal ka mida burburinayaan cuqdad weynna ugu qabaan wixii ka dhacay labadii daarood ee dhaadheeraa ee New York. Taas ayaa u gashay taariikhdiisa oo aan marnaba lagu ilaawi karin, inkastoo dalalka islaamka oo maanta jira ay yihiin kuwo aan awood badan lahayn una hiilin karin geesigan islaamka ah maadaama uu ka horyimi siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Sidoo kale waxa uu horey u ahaa geesi qaran, kaasoo xulka dalkiisa u soo hoyay koobkii adduunka kiriketka sanadkii 1990, koobkaas uu ka qaaday dalkii hore iyaga u gumaysan jiray ee Ingiriiska. Waxa uu ahaa muddo ka badan 10 sano kabtanka kooxda kiriketka ee dalka Bakistaan, waxaana uu guulo badan ka soo hoyay inta uu ciyaarahaas ku dhex jiray. Cimraan Khan ayaa guulo badan oo la taaban karo ka soo hoyay ciyaaro dhexmaray xulalka Bakistaan iyo Hindiya, ciyaarahaas oo ah kuwa loogu daawashada badan yahay maadaama labada dal xurguf weyni ka dhaxayso. Ciyaarahaas dartoodna waxa uu noqday shaqsiga ugu weyn ee gudaha dalka Hindiya laga ixtiraamo oo Bakistaaniya, inkastoo ay labada dal xurguf weyni ka dhaxayso. Dhanka noloshiisa marka aynu ka hadalno, Cimraan Khan ma aha nin haysta hanti aad u badan kana sameeyey lacag badan siyaasadda. Cimraan Khan lacagtiisa waxaa lagu qiimeeyey $680,000 oo keliya, waxa uu haystaa wax ka yar 1 milyan. $680,000 ma aha mid wada kaash ah ee waa qiimeyn la sameeyey qaybtood 2 guri oo qurux badan uu leeyahay iyo xoogaa lacag oo uu hanti gashaday. Hantidaasu inteeda badan gashado wax soo saarka beeraha. Daawada fadlan ku xirnow kanaalka, subscribe saar, gambaleelkana furo. Mahadsanid. Ramadaan wanaagsan.